waxaana wanaagsan ilahantiin baa khiyaarta hawada nagala socotaa isku soo noqod wanaagsan iyo muuqaal hor leh qodobada muuqaalka aad ku daawan doontaan hadduu Allah awood loo ogolaadana waxaa ka mid ah ganacsato loo haysto kiis xasaasi ah oo la horgeeyay maxkamadda gobolka Banaadir. shirka golaha wadatashiga oo ka furmay Muqdisho iyo laba mas'uul oo ka maqan dani oo qaaday tallaabo cajiib ah ka hor doorashada bari dhacaysa. dowladda federaalka oo shir degdeg ah ku qabatay magaalada Muqdisho caasimadda dalka iyo waliba sidoo kale xaalad halis oo caawa ka tagaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo rasaas xooggan oo la isku garaacayo. dagaaladii ugu dambeeyay ayaan dib u istaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka sii sheegay haddii taamirka ugu horeysay ee soo booqatana fadlan YouTube-kana subscribe dhawo gambalelkana furo ku mahadsanidin. aynu ku bilownay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud oo qoraal soo saaray ayaa shaaca ka qaaday in xafiiska uu maxkamadda gobolka Banaadir horgeeyay ganacsato iyo shirkado loo haysto kiis xasaasi ah kuwaasi oo maalmo ka hor lagu soo qabtay howlgal qorsheysan oo ka dhacay Bakaare. ganacsatadan ayaa waxaa lagu soo eedeeyay inay iibinayeen raashin iyo cabitaano dhacay kuwaasi oo halis ku ah bulshadeena. sidoo kale xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa sheegay in ganacsatadan iyo shirkadaha ay jawaano iyo taariikh cusub siiyeen cunooyinka iyo cabitaanada dhacay. xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxaa horgeeyay maxkamadda gobolka Banaadir 9 eedeysane iyo shirkado lagu soo xiriiriyay ganacsiga cunooyin iyo cabitaano dhacay ayagoo jawaano iyo taariikh cusub siinaya ayaa lagu yiri qoraalka xeer ilaalinta. qoraalka ayaa intaasi ku sii diray markay baarista soo dhamaato waxa xafiiska eedooda u gudban doona maxkamadda awoodda u leh. xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa sidoo kale digniin culus u diray cid kasta oo ka howlan kaydinta iyo ganacsiga raashinka dhacay oo halis ku ah bulshada. dhanka kale xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa fariin gaar ah u diray dadweynaha Soomaaliyeed isagoo ku booriyay inay arrinta kala shaqeeyaan hay'adaha ammaanka. wuxuu xafiisku ugu boorinayaa bulshada Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga si loo soo afjiro falalka khatarta ku ah bulshada ayaa mar kale lagu yiri qoraalka. ugu dambeyn xeer ilaalinta ayaa bogaadisay dadaalka hay'adaha ammaanka ee dowladda oo howlgal ay ka sameeyeen Bakaaraha ku soo qabtay ganacsatada la geeyay maxkamadda. dhanka kale shirka golaha wadatashiga qaranka ee u dhexeeya dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kaasi oo looga hadlayo arrimo dhowr ah. shirka oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa gudoominayay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaana goobjoog ah madaxweynayaasha Jubbaland Axmed Madoobe, Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen, Hirshabelle Cali Guudlaawe, Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Madaale. sidoo kale waxaa shirka ka maqan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Dani oo weli khilaaf xooggan u kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya waxaana fashilmay isku dayo lagu doonayay in lagu soo geliyo shirka maadaama ergo loo xil saaray. Siciid Dani ayaa haatan ku jira tartan doorasho adag maadaama ay bari Puntland ka bilaabanayso doorashada golaha deegaanka ee maamulkaasi. waxaa sidoo kale madasha ka maqan ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre oo isna haatan safar shaqo ku jooga magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar halkaas oo ka qayb galay shir madaxeedka sanadlaha ah ee Bangiga Horumarinta Afrika oo ka furmay dalkaasi. shirkan ayaa waxay madaxda uga arrinsanayaan arrimaha amniga, dagaalka Al-Shabaab, gaar ahaan wejiga labaad ee dhamaystirka deyn cafinta sida lagu yiri bayaan kooban oo ka soo baxay Villa Soomaaliya. madaxtooyada ayaa sidoo kale shaacisay in madaxdu ay shirkan diiradda ku saari doonaan wixii ka dhaqan galay heshiisyadii horey uga gaareen shirarkii hore ee golaha wadatashiga qaran. shirka ayaa haatan ku soo aaday xilli xasaasi ah isla markaana Puntland ku jirta doorasho dowladda dhexena ay ku howlan tahay dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab. si kastaba gabagabada shirkan ayaa la filayaa in madaxdu ay soo saaraan warmurtiyeed ku aadan waxyaabaha ay ka wada hadlayaan muddada uu socdo shirkooda. dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta xaafadaha degmada Baran ka sameeyay olole cajiib ah oo codka ugu raadinayo urur siyaasadeedkiisa ka. madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland ayaa baahisay madaxweyne Dani oo sidoo kale ah gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka oo albaabada u garaacaya qaar ka mid ah dadka xaafadaha degmadaasi ee u diiwaan gashan inay ka qayb galaan codbixinta bari ka dhacaysa maamulkaasi.
Siciid Dani ayaa weydiistay bulshada uu la kulmay inay u codeeyaan urur siyaasadeedka KAA. Waxaa sharaf ii ah inaan qaraacay albaabada xaafadaha Badhan si aan dadka u weydiisto codka inay siinayaan oo u codeeyaan ururka KAA doorashada golayaasha deegaanka ee 25 May 2023. KAA waa ururka ay ka soo xatay aragtida iyo hirgelinta in awoodda shacabka loo dhaweeyo, ayuu yiri madaxweynaha Puntland ahna gudoomiyaha urur siyaasadeedka KAA. Tallaabadan uu maanta qaaday ayuu madaxweyne Dani ku tilmaamay guul weyn oo taariikhi ah, maadaama isagoo madaxweynihii maamulka uu cod ka raadinayo bulshada uguna tagayo xaafadaha. In aniga oo madaxweynihi aan cod ka raadinayo bulshada tagayo xaafadaha codsanayo cod waa guulaha ugu weyn ee shacabku helayo, waayo waxay awood u yeesheen inay wax doortaan. Dadka iyo waxaan inoo go'an inaynu wadajir taariikh u sameyno insha Allah berito 25 May 2023. Waxaa hadalkiisii raaciyay waxaynu suntaynaa taariikh cusub oo soo noolaysay rajada shacabka Soomaaliyeed oo dhan, waayo rajada ugu weyn ee dalkeena waa in dadku codeeyo guul insha Allah. Si kastaba, Puntland ayaa waxaa la filayaa in bari ay ka bilaabato codeynta doorashada qof iyo codka oo lagu soo dooranayo golayaasha deegaanka, iyadoo mucaaradka lagu qanciyay in doorashada ku dhacdo si nabadoon, kadibna la isugu yimaado shir guud oo looga tashanayo doorashada madaxweynaha ee 2024. Dhanka kale, gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee SODMA, Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa maanta gudoomiyay shir degdeg ah oo heerkiisu sareeyo, kaasi oo ka qabsoomay magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa waxaa looga hadlayay xaaladda adag ee ka jirta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Kulankan oo goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka hay'adda Dr. Axmed Cabdi Aadan ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan hay'adaha deeqaha bixiya ee dowladaha Islaamka. Waxaa diiradda lagu saaray sidii dadka ku barakacay fatahaadda gargaar loo gaarsiin karo. Sidoo kale waxaa kulankan ay dhinacyadu kula fagureen sida la isku duwi karo howlaha gargaarka ee ku aadan xaaladda adag ee ka taagan magaalada Beledweyne. Gudoomiyaha hay'adda ayaa dhammaan mas'uuliyiinta iyo wakiilada uu la kulmay ee ka socday hay'adaha kaga warbixiyay xaaladda magaaladaasi, maadaama uu booqasho dhowr maalin qaatay uu ku tagay Beledweyne. SODMA ayaa toddobaadkii hore waxay magaalada Muqdisho ka dirtay 50 gaari oo sida shixnad mucaawino ah looguna talagalay shacabka dhibaatada ka soo gaartay fatahaadaha webiga Shabeelle ka sameeyay gudaha Beledweyne iyo deegaanada ku xiran. Arrimahan ayaa imaanaya xilli uu barakac hor leh ka bilowday xaafadaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, oo madaxweyne hore Hirshabelle uu dowladda federaalka u baaqay inay si degdeg ah u soo gurmadaan shacabka Beledweyne. Si kastaba, fatahaadda webiga Shabeelle ee Beledweyne ayaa marar badan soo laabatay, mana muuqdo qorshayaal guud oo wax looga qabanayo fatahaaddaasi oo saameyn ballaaran ku yeelatay nolosha dadka deegaanka iyo guud ahaan dhismaha magaaladaasi aadka u weyn. Dhanka kale, waxaa caawa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool laga soo warinayaa markaasi in dagaalo xooggan oo u dhexeeya maamulka Somaliland iyo kuwa ciidamada deegaanka ee SAC halkaasi uu ku dhacay. Sidoo kale, dagaalkan ayaa waxaa barbar socda madaafiic culus oo lagu garaacayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, taasi oo ka dhigaysa khasaaraha mid aad u xooggan. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegeen markaasi in dagaalka uu bilowday saaka rasaas goos ah la maqlay ilaa galabta, balse caawada uu si toos ah u bilowday iyadoo rasaasta kala joogsi aan lahayn, sidoo kalena la isla dhacayo oodana la iskaga qaaday markaasi rasaasta noocyadeeda kala duwan. Dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen markaasi in magaalada Laascaanood lagu garaacayo madaafiic culus, taasi oo ka dhigaysa markaasi khasaaraha mid aad u badan, maadaama la beegsanayo dhulal iyo weliba sidoo kale meelo ay leeyihiin dad shacab ah. Sidoo kale, dagaalka ayaa waxaa lagu soo waramayaa xooggiisa inuu ka socdo dhanka bariga magaalada Laascaanood iyo weliba sidoo kale taliska Koojaca oo ay isku hayaan labadaasi ciidan. Dhawaan ayay ahayd markii maamulka Somaliland uu sheegay markaasi inuu guulo waaweyn ka soo hooyiyay dagaaladii shalay ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, marka iyagu dhanka SAC ay sheegteen guul taas la mid ah. Haddaba xaaladda ayaa mid aad u cakiran, waxaana weli socda dagaalada markaasi iyadoo rasaas markaasi toos aan laga maqlayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dagaalkan ayaa ku soo aadayo iyadoo maalmihii ugu dambeeyay maamulka Somaliland oo dhaqdhaqaaqyo xooggan ka waday duleedka magaalada Laascaanood,
isagoo doonayay 25 May inuu weerar toos ah kusoo qaado ciidamada huwaanta ACC ee ka dagaalamaya halkaasi si guud ahaanba uu la wareego magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, balse ciidamada ACC oo iyagu ahaa kuwo ka feejigan dhagartan ay soo maleegayeen ciidamada Somaliland ayaa waxay kala hortageen markaasi hubka noocyadiisa kala duwan ayagoo iska dhicinay markaasi dagaal xooggan ayaa caawa ka socday ilaa haddana uu socdaa oo kala joogsi ma laha rasaasto, sidoo kalena khasaaraha ka dhashay ayaa ilaa hadda waxba laga soo sheegin maadaama weli dagaalku uu socdo, sidoo kalena xabadda la isla dhacayo. haddaba lama oga sida xaaladda ay noqon doonto iyo goorta dagaalka uu qaboobi doono maadaama weli uu socdo, sidoo kalena la isdhaafsanayo hubka noocyadiisa kala duwan. Alaaba magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa ku dagaalamay ciidamada huwaanta ACC oo iyagu doonayay inay iska dulqaadaan maamulka Somaliland, halka maamulka Somaliland ay ku doodayaan inuu ka maqan yahay xuduudda Somaliland taaka ka mid ah ayna soo dhicina markaasi ayagoo sheegay dadka halkaasi ka dagaalamaya inay yihiin kuwa argagixiso ama sidoo kale markaasi maamulka Puntland ee Soomaaliya. haddaba ciidamada ACC oo markaasi ayagu eedaasi ka fogeeyay sheegayna markaasi inay yihiin kuwa dagaalamaya iyaga deegaanka iska leh waxay sheegeen in deegaankaasi aysan lahayn maadaama ay iyagu leeyihiinna Somaliland ay ka baxdo, sidoo kalena ay u tirsadaan ayahooda iyo masiirkooda. haddaba dagaalka ayaa haatan socda, wixii kasoo kordho oo khasaarahana halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa hadduu Allah awood loo ogolaado. muuqaalkeen intaas ayuu ku egyahay, muuqaalka muuqaal xigeentaan kulmi doona sidaas ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.